kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa kooxda al-shabaab oo dagaalo xoogan lagu hayay lagana saarayay deegaanadii ugu dambeeyay ee gobolada shabeellada dhexe kaga sugnaayeen ayaa maanta ku gadooday ari deegaanadaasi ku noolaa kadib markii ay ka shakiyeen dadka deegaanka oo ay tilmaameen in ciidamada ay u jaajuusayaan waa sidii hadalka u dhigeen kadibna ay laayeen in ka badan 350 neef oo ari ah dhanka kale magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka dhacay banaanbixii ugu weynaa kaasi oo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab oo in dhawaalaba dhibaato ku haya guud ahaanba koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dhanka kale waxaan daawadayaal barnaamijkeena aan ku qaada dhigi doonaa dowladda Kenya ayaa magaalada Hargeysa ka furanaysa ambaba u dirtay qunsul ay ku sheegeen inuu ku matali doono dowladda Kenya arrintan ayaa dadka siyaasiyiinta iyo mucaaradka guud ahaanba walaa xoogan ay ka muujiyeen arrintan ayaan daawadayaal sidoo kale aan qodobkeena diiradda ku saari doono aan ku faaqidi doono qodobo kale ayaa inoo raaci doona hadduu rabbi idmo barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay gooni oo inta badan ka faallooda arrimaha koonfurta Soomaaliya gooniyo haddii aan ku bilowno ee kooxda al-shabaab ee deegaanadii ugu dambeeyay maanta laga saaray iyo ariga ay gowraceen fargado horta waa mahadsan tahay shabaabka maanta waxaa laga saaray deegaanada ugu dambeeyay ee shabeellaha dhexe ka joogeen marka weerar ayaa lagu qaaday meel ay isku aruursanayeen ayna ciidamada dowladda weerar ku qaadeen kadib way ka saareen meeshii guul aad u weyn ayna ciidamada ka keeneen maanta lama dhihi karo Hirshabelle meel kamid ah ay shabaabka joogaan inta badan waa laga saaray wax u hareen mala galguud ayay isugu tageen marka shabaabku guul darada ayaa isdaba joog ku noqotay mar walbana duqeyn iyo laysmo ebra looga dhigay marka waxay sameeyeen garal ayay shabaabku xaaladda marka ku adkaatay waxaa laga xoreeyay deegaanadaas ku dhow ilaa dhowr tuulo oo ku dhow xadka shabeellaha dhexe iyo galguduud ay wadaagaan ayaa laga saaray maanta waxaana lagu dilay shabaab fara badan duqeyn meesha kamay dhicin laakiin ciidamada dowladda ayaa howlgal degdeg ah fuliyay maadaama ay ummadda Soomaaliyeed dhibeen shabaabku maantana dhibaato badan ay ka geysteen deegaano kale fara badan oo ayadana wararkeena dambe ku soo qaadan doona marka shabaabku waxa la leeyahay guul darro aad u weyn ee dhabarka loo saaray fargodow taas waxaa ka daran maanta waxay dileen 312 neef oo ariya marka xaaladdu waxay gaartaba ariguna waa murtadiin xoolihii ayay ku jihaadayaan jihaadka shabaabka hadda wuxuu gaaray dhanka xoolaha ayuu gaaray waxay sheegeen in meel deegaan wabxa u dhaxaysa maxaas ay weer ku soo qaadi rabeen shabaabka ayagoo soo aruursaday dhanka wabxa ka yimid inta ay soo gaarin nimanka macuusleyda oo deegaan ku sugnaa ayaa ka war helay oo warka soo gaaray maadaama shacabka iyo wada shaqeyn ka dhaxaysa ciidamada iyo macuusleydaba markii dambe waxay sameeyay shacabka yaa soo gudbiyay xogtii inay shabaab soo socdaan shabaabka meesha waa loo baneeyay tuuladii ay weerar ku soo qaadeen waa loo baneeyay shabaabka meel cid la yimideen marka waxay dhaheen waxaan najaajuusay dadka shacabka ah ayaa najaajuusay wax kale ma najaajuusay marka waxay dhaheen shacabkuna waa murtadiin xoolahoodii ayagaba waa leeyna marka shacabkii way carareen oo way ka shakeen nimanka waqti maadaama ay soo galeen meeshii cidla markay yimideen waxay isku dayeen in macnaha xoolihii ay laayaan 312 neef oo ari ah oo wax kale aysan ku jirin ee madax ka jareen marka waa wax la yaabo shabaabka jihaadkooda meel xun ayuu gaaray dhibaato aad u fara badan ayay ummadda u geysanayeen muddooyinka la soo dhaafay haddana xoolihii ayay tagtay xaaladdu meelaha waxay maraysaa xoolaha ayay maraysaa fargodow wax la yaabo waxa ah in xoolihii ay ku jihaadaan shabaabka arigana ma uu ridoobay bay leeyihiin hadda ariga naftigiisa waxay leeyihiin dadka iska laha waxay murtadiin marka ayaga iyo maalkoodaba waa la banaystay ayaga iyo maalkoodaba in la laayo way dhaheen marka xoolaha waa xuu ka mid yahay hantidii oo dadku ay haysteen marka waxa xaaladdu meel xun ay maraysaa marka waxay taas tusaale u tahay in shabaabku ay soo daba jarmayaan marba haday dunyada ka fakaweysay dadka noolahayn waa laayeen dunyadana waa ku dareen wax soo haray marka ma laha shabaabku marka inay soo daba jarmayaan waxa u malaysaa meeshii ugu dambeysay ay marayaan gooniyow dhanka kale magaalada muqdisho waxaa ka dhacay banaanbax weyn oo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab laakiin arrin la yaab leh ayaa jirto oo raba inaan gooniyow kaaga hormariyo waxaa jirta in wasaaradda difaaca ee qaranka Soomaaliyeed ay qabanqaabinaysay hormuud ka ahayd baa la yiri banaanbaxan maskiga nimanka soo xirtay marka banaanbaxan waxa ay sameeyeen shaqaalihii sida iyadoo coronavirus uu jiro oo magaalada muqdisho laga cilaamay waxay soo qaateen mask bay soo qaateen oo kiyaal madmadowna way soo qaateen hal nin kaliya ayaa baraha bulshada dhex wareegaya wax aan afka duubnay wajigu furan madax xiran marka waxa la ninkan maxaan ku tilmaamay nin gees ah mise nin xanuunsan kulli waa nin gees inta badan Soomaalida u badnaayeen laakiin shaqaalihii rayidka ahaa ee wasaaradda ka shaqeynayay boqolkiiba 90 afka wada duubteen
waxa weeyaan wax kalena ma coronavirus ma jira waa cabsi weeye ama saas waa cabsi marka waxaa ka hadlay arrintaas Cali Racali ninka lagu magacaabo wuxuu yiri wasaaradda difaaca ama wasaaradda gaashaandhigga oo hormuud u ahaan lahayd banaanbaxa haddii afka soo wada xiratay taas wuxuu yiri waa wuxuushnimo ama fuliynimo tii ugu weyneed wuxuu yiri wasaaraddu waa tii ciidanka iyo weerarka dadka gelin jirta waayo marka hadday maska soo wada xirteen waxaa ka dareemi kartaa yiri cabsida shabaab ay weli ka qabaan shabaabku waqti laga cabsado waa ka gudbeen hadda dadkii maxaa la yiraahdaa shabaabka baqi jiray way ku dhiiradeen ummadda dhan way ku soo jeesatay marka shabaab waqti laga baqo ama laga cabsado ma jiro hadday u bataan hal qof ama laba qof ay meelaha ku dilayaan laakiin shabaab dawladdu hadday tiraa shabaab ka cabsanayna xaalad saan ma ahaateenba shabaab guryada lagu beegsanaya shacabkii ku kacay ilaa heer xoolihii ay dhameeyaan gaarin shabaab meel ay ka soo laaban karaan ama ay ka hadli karaan ama dib dambe ugu nuuxsan karaan ma jirto shabaab waa isku soo daba jirmeen waana isku dhamaadeen dhamaadka shabaab ayaa la taagan yahay fargodow marka qofkii shabaab ka cabsanaya maanta maska soo xirnay asaga u taala waxa uu natiijo ma laha aad iyo aad baad u mahadsan tahay gooniyo barnaamijkeeni ayaan daawadayaal dhexda kaga jiraa waxaa jira in dawladda Kenya ay safaarad ay ka furanaysaa liidi inkastoo dadka qaarkood ay leeyihiin waa qonsul weeye magaalada Hargeysa arrintan maxay kula muuqataa horta arrintaas intaan gelin maanta banaabax aad weyn ayaa magaalada Muqdisho ka dhacay taasoo shabaabka lagu soo horjeeday waxayna ku dhawaaqeen dadka waxay halees ka dhigteen waxay dhaheen xawaal ama xal shabaabo xawaal ama galaysiin ama xal aan la iimaanaysiin marka shabaabku meesha ugu dambeysay maadaama ay marayaan labadaas mid soo galaa leeyahay shacabka stadio Koris kugu tagay ama engineer Yiriso isugu tagay kumanaanka kun aha waxay cadeeyeen in shabaab waqtigan wixii ka dambeeya aysan u adkeysan karin kacdoonka ugu weynaay abaabul meel weyn gaarayna gobolka Banaadir wuxuu ka sameeyay magaalada Muqdisho shacabka cabsan jiray maanta waa isku soo baxeen 24 saac oo hadda ay sheeg la soo dhaafay iyo kuwa hadda soo socdaba shacabku wuxuu u diyaarsiinaa leeyahay inay shabaab ku banaan baxaan marka halees waxay ka dhigeen xabaal ama xal shabaabo ama xabaal baad galaysaa ama xal la iimaanaysi marka halees aad u weyn noqday waa gartay muddo fara badan oo 15 sano ah ayaa ku soo jirnay dhahan dhibaateyntiina marka hadda meesha ugu dambeysay marayna kumanaan oo shacaba ay shabaab ku dileen siyaabo kala duwan waxa la yiri waraaba dalayba dirtiisa loo tagaa waa kaas marka dambe libaax hadda waxa la yiraahdaa rag overku waxay dhaan libaax duqan shan weer waa ka fiican yahay marka hadii mar baasha aad rafata xataa marag madaxa waa ina ku dagaalantaa marka isku dhamaad ay marayaan shabaabkii waxay dileen dad masaakiina waxay dileen dad uur hooyin uur waxay dileen odayaal nabadoon ay dileen saraakiil ay dileen shabaabka wax ay dhaafeen ma laha teeda kale maanta waxaa la xukumay ninkii shabaabka qaraxyada soo deyn jiray oo sheeg Maxamed Shariif Barqale la dhihi jiray in waxaa lagu xukumay dil toogasho ah oo maxkamadda watii dhowr beri kor ay dhageysatay arrintiisa in qaraxyada faraha badan magaalada soo galiyay qaarkood asaga gaari gacanta oo ku wada oo geeyaa bal yiro asaga ku baakimay meelaha qaar baabuurta ha liida kamid tahay asaga gaariga baabuurta gacantiisa ku wada maadaama sargaal uu yahay baabuur asaga gacantiisa ku wada meelaha qaar geeyaa yiro oo dhigay marka ninkan waa nin halis ahba wuxuuna ka xanaaqay 2019kii maxaa Abdullaahi Farmaajo xil wuxuu ka qaaday taliye urur inuu hayo taliye urur shacabka oo falanqeynayna taliye urur waxa waaye waa ninka u taliyo 250 ama 300 oo asgari inta u dhaxaysa ninka u taliyo waa marka 800 ma 800 madam taliye waa ninkan taliye urur waa 250 ilaa 300 kama badno waa garta marka in aad ay macnaha ciidamadaas oo kalba qoonda ka heli jiray marka taas oo laga qaadan ka xanaaqo dhah shacabkan saas ay u dhibaateen jiray 15 qarax oo kala duwan oo qaarna asaga soo gudbiyay qaarna asaga maxaa la yiraahdaa ay oosan soo gudbin ayaa ishaga lagu eedeeyay ninkaas intoodana wuu qirtay marka wuxuu yiri aniga shabaab wax badan la shaqeynay teeda kale waqtiga waa la waayay waqti maxaa Abdullaahi Farmaajo ninkan la dhageystay oo xogtiisa la helay oo dabagal lagu sameeyay alboorka qarax ka dhacay waxa baawar ku baakimay dabagal dheer lagu sameeyay marka ninkan wuu dhuuntay oo hadda wuu baxsaday meelahaas ayuu ku dhuuntay waa la waayay argis waa la waayay dawladda Farmaajo waa tay dhacday hay'adda nisa kamay xarin marka maadaama xogtii wili ay hayeen waxa laga soo qabtay deegaanka hadda lagu macaawisil asagoo ciidamada ku dhex jira oo hadda inta dharka militariga soo labistay leeyahay shabaab wax ku xoreyna asana shabaab hoosta ku wato ciidamadii oo halis galiyba marka gacanta lagu soo dhigay maanta dil toogasho lagu xukumay waa kaas marka hadda u gudubno in arinta kale aheeday qonsulka arintaytan ka bixin waxa la sheegayaa kontonka sargaal ee la shaqeyn jiray in beelaha weyn kuwoodii oo kuwa ugu daran ah in loo dhawaan laayahay xogta maxad ka haysaa iyada maya horta dawladda Xashi Maxamuud beelo weyn loo dhawaanayna wax la dhama jiraan Xashi Maxamuud waxa qoran ma laha ninka naftiisa beelaha weyn ku dhashay nin reer muduga qabiilkiisa saxda aanu ma garanayo laakiin waa nin reer muduga ma ahan beelaha yararka ma ahan marka Xashi Maxamuud dawladdiisa
beel weyn iyo beel yar ma qorto ninka ciidiid ahaa oo 5 sano maxaa Cabdullaahi Farmaajo xasan cali qeyr u xirnay in birta ayuu saaray ogeed oo Cabaas Siraaji dilay wasiirka dilay nimanka shabaab ahaa oo 15 ka ahaa meesha ku xakumnaa dil toogasho 15kooda madaxa ku dhiftay niman kale oo dad soo dilay oo si shakhsi ah darwalaan iyo dad dilay shacab waa la toogtay marka ninkan nimanka kale oo hadda meesha ku xirana qof la deyn doono ma jirto xataa maha salaadka niso madaxda u ah hadoo qalad galo xashi maxamed uu toogana ka hadal ma laha xashi maxamed wixiisu in laalaab iyo qararac iyo cabsi ma jirto maalin dhawto waa maqlayna inay dhahayeen ciidida la dilay ciididaasana maxaa la yiraahdaa beesha ceer ee banaan bixisay xashi waxaas ma qoro dhag jalaq uma siiyo wuxuu markiiba kaga jawaabay markii ay beesha ceer ay soo weerartay banaanbax ay ku sameeyeen 6 beesha ceer ka tirsan oo dawladda ka tirsan ay xil ka qaaday ee kamid ahaayeen maxkamadda gobolka Banaadir ninkeystay oo kamid ahaa Xalim Yare ee kamid ahaa guddiga doorashooyinka oo kamid ahaa Cali Racali oo gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir ahaa rag fara badan oo saas xilka uga rafayba marka Xashi Maxamed qofku ka cad gudbo dhulka la jaraaba marka lama dhihi karo ninkan beelaha yar iyo beelaha weyn ma kontonka sargaal xiran kontonka baad ku soo baxdo tirka dilagay waa Salaam aan Xashi Maxamed waxba ka maqan ay waa garta xasan sheekh maxamuud baa saaxiib weyn la tahay ma saaxiib weyn lama yihiin laakiin waxaan dareensanahay inuusan Xashi Maxamuud shabaab wax la xiriirin oo san isxaan u sameeyeen waa garta waxyaabo kale lagu eeday Xashi Maxamuud dawladiisa ama corruption lagu eeday ama dhicifnimo kale lagu eeday laakiin Xashi Maxamuud shabaab lagama mari xagga dhanka ku fiican yahay shabaabka laga mari waa gartay Kenya iyo haddana soo gudubno Somaliland Kenya iyo Somaliland waxaa la geyn doonaa qusul laakiin dadku waxay leeyihiin waa safiiro Kenya si dadban ay u aqoonsatay nimanka la Somaliland laakiin Kenya inta meel soo istaagto ma dhihi karto anaga Somaliland waa aqoonsanay waa kuma dhacdo dawlad kaliya dawlad iska ma aqoonsan karto marka Kenya ama fashil ka qaadi doontaa oo Xashi Maxamuud kartiisa muujin doono ama Kenya say rabtay noqon doontaa Xashi Maxamuud lagu tuman doona labadaas mid ay noqonaysaa marka wali ninkii lama geenin meesha laakiin waxay nimanka la yiraahdo Somaliland wufuud ka socota magaalada Nairobi ku shirtay halkan ayaguna kula kulmeen dad siyaasiyiin ka socda Kenya marka waxay u sheegeen in la geyn doono halkaasi nin ay ka socdo oo Kenya ku matalo Somaliland marka ninkaas markii la geeyo Xashi Maxamuud kolba hore dad ka hadlo waa asaga waxa ma qaray jawaabta oro ka bixin doona marka inuu jawaab ka bixiyo oo Kenya isla markii la dabaqtamo oo ka jawaab ayaa ogaan doona haduu ka jawaab waayo Xashi Maxamuud oo ku fadhiya ayb ay dhaxtaagan laakiin Xashi Sheekh Maxamuud inta badan waxa la dhahaa dhanka diblomaasiyadda iyo inuu waraaqa u qoriyo waxa uu ku fiican yahay inuu durba go'aan iska soo jaro oo nimanka ama qaadka ka jaro ama wixii kale uu sameeyo aad arinta ugu ma dhiirada haddii taas oo sameeyo oo macnaha ku dhiran waayo dicifnimadiisa muujinaysa marka awoodeeda haddii aan aniga isticmaal waayo anoo madaxweyne ah doqonimadeeda waa soo ma shacabkana qofku hadli lahaa ama hormuud ku ahaa aniga waa marka qofka markuu madax yahay waxa fiican inuu madaxda ciidda ka cishto madaxdii hore waxa lagu amaanaa nimanka la yiraahdo Fahad Yaasiin iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan cali qeyr waxa lagu amaanaa rag go'aan adag inay ahaayeen inkastoo dadka qaar ay leeyihiin dictatornimo ay ahayd marka qaar dictatornimadu waxbay hagaajisaa xal ku jira markii aad wadan adiga ku gumeysanayo ama aad dhulka kula jirayo ama ku ceebeynayo ama dhulka ku liidayo markaad madax ciidda ka qaadato waxa taariikhda galay ninkii la dhihi jiray Haysam ninkii waagi xilka laga qaadi jiray UN ku qaabilsanaa wasiir Cawad oo xilka ka qaaday oo wadanka laga ceeriyay oo macnaha xukuumadda inta su'aalaad la isku weydiiyay xukuumadda tir waa sax ayaa guul noqotay marka waxa fiican in qofku wax ku dhiiran karo oo dawladdu madaxa ciidda ka cishato haay iyo ma inuu wax dhihi karo Xashi Maxamuud haay ma hadoo dhihi waay la dagaalanka shabaab kaliya meesha u jooga war ma noqonayso waxa fiican heekelka Soomaalinimo iyo xagga diblomaasiyadda iyo xagga dawladnimada inay ilaashato oo magacaada iyo sharaftaada ummadda Soomaaliyeed ku ilaaliso marka waxaan dhihi karnaa Xashi Maxamuud waxaan ka rabnaa si degdeg inuu Kenya ugu jawaabo hadii lacala Soomaaliland qonsul u dirto Soomaaliland aqoonsanay micnaheedu waay marka Kenya in su'aashaas la weydiiyo ma Soomaaliland aqoonsateen cadeen Kenya in la dhaho iyo waxa u direysaan wuxuu yahay hadda ka horba waada dirina sababta hadda ugu direysan in la isweydiiyo oo hadii Soomaaliya dawlado badan waxay isku dayaan qaabka ay macnaha ula macaamilayaan hadii ay dantooda ka waayaan waa sida dabeecad moogtahay dawladaha ay mar walba sameeyaan dantooda hadii ka waayaan waxay kugu bilaabayaan qulqulatada hadii kamid tahay la isdhahay ka hadasho maxaa la yiraahdaa Soomaaliya ka hadasho markii la yiraahdo culays macnaha in si degdeg ugu jawaabta loo baahan dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu joogay gobolka Gadow oo ka soo jeeda la duqeyn jiray waxa la dhihi jiray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadla Kenya duqeyn jirtay waa xasuusanaa Soomaa hadda gobolka Gadow lama duqeeyo sidii hore ma jirto intaas waxa lagu xumeynay reer Gadaa meesha degan waxayna isku cidin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saasa loo duqeyn jiray marka mar walba waxay isku dayaan dadka siyaasiyiinta ama dawladaha dariska ah ama wadamada Carabta ah in dawladnimada Soomaaliya la curyaamiyo haday dantooda ka waayaan laakiin waxa uu fiican madaxweynaha inuu kiris ka dhaho haduu kiris ka dhihi waayo Xashi Maxamuud asaa xilka laga qaadi doona meel cidlana soo istaagi doona
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay daawadayaal barnaamijkeena faaqidaadana inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono midkan mid lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo